بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد درسيني تفسير كاها بشهر رمضان أنا تلقلي جزء عامة ودرسي شناد وقبل الله بنيا سورة المطففين سورة المطففين سيدا حديث النبي كم وقت صلى الله عليه وسلم وحي سودكتي النبي صلى الله عليه وسلم مركو مقالة مدينة يمد لرب العالمين أونك ربي أي أستاجي دونان ويقبور توضك السوكع دونان ددك ميزانك وهذا عبيريا ميزانك يبيغا راشينكي بو كسابسن قارنا ولا بيغا قارنا ولا ميساما marka la kala iibsanayo laakiin waxa kamida waxyaalaha la mitiriya soo galaya waxyaalaha waxa soo galaya muxuu ahay la tiriyo wax kasto la kala wareejisto la kala bedelanayo intii
iyo miisaankii iyo qaabkii loo kala qaadanayay waa inuu ruuxu iska ilaaliyo xuquuqda dadka uu la mucaamalonayo iska ilaaliyo waa hadduu maalan waxa way feet wax kaga iibinayo hadduu mitir wax kaga iibinayo hadduu muxuu ahaay dhudhun iyo baashi kaga iibinayo hadduu tirinayo hadduu miisaamayo hadduu waxii yani waa mawaasiinta iyo macaayiirta dadku markay wax la kala wareegayaan ay kula kala wareegaan oo dhan baa soo gelaysa dadka marka halkaa wax ka raadiya oo dadka xuquuqdooda ka nusqaamiya dadkaasi halaag iyo khasaaro iyo hoog bay leeyihiin ilaahay agtiisa ku leeyahay tabaaraka wa tacaala waa ka quraanku inoo sheegay oo inooga sheekeeyay in ilaahay tabaaraka wa tacaala qowmu shucayb nabi shucayb qowmkii loo diray asbaabta loo halaagay kuwa ugu muhiimsan waxa ka mid ahaa way isdulmin jireen oo suuqyadii ganacsiga isku dulmin jireen markaasuu nabi shucayb markuu u tago wuxuu ku yiri war ilaahay kaligiina caabuda dadka xuquuqdoodana ha nusqaaminin oo ha dhimine xuquuqda si dhammaystiran dadka uu siiya oo makaayiisha iyo mawaasiinta hagaajiyo toosiya way diideen marka maxaa xoolaha naga ku galiyay bay dhahan xoolaha naga saan doonaanu ka yeelaynahay maxaa xoolaha naga u faragashanaysaa iyo ganacsiga naga adiga waa kii marka ilaahay halaagay tabaaraka wa tacaala waa la baabiyey marka xuquuqda bini aadamka markuu ruuxu ganacsanayo inuu iska ilaaliyo way qoladani marka waxaa si gooniya haddana loogu sii dhaleeceeyey ceebtoodu waa anaaniyiin bimacnaa markay iyagu xaq qaadanayaan waxba kama tagaan markay iyagu ay beeganayaan oo dadka ka beeganayaan markay iyaga loo miisaamayo waxoodii oo dhammaystiran bay qaadanayaan oo waa ku mitidayaan markay iyagu xaqa bixinayaan oo ay beegayaan oo miisaamayaan oo dadku xuquuqdooda ay u gudayaanna markaasay ka sirayaan way khayaamayaan waxbay dhimayaan marmarka qaarkood waxay sameynayaan laba koobo ama laba miisaan oo kala duwan bay wax ku miisaamayaan marmarka qaarkood yani waxa way koobadii baalmeel laga diisinayaayo waxay qaadi lahayd baa la yaraynaya waakada waxaas oo dhan baa soo galay waylun halaag iyo marka muxuu ahaay iyo khasaare lilmutaffifiina buu u sugnaaday kuwa dhima fududeeya xuquuqda dhima dadka xuquuqdooda ka nusqaamiyo ka dhima alladina kuwaasoo idaa goortii iktaalu ay beeganayaan cala annaasi dadka korkooda markay ka beeganayaanoo iyagu soo beeganayaan la soo wareegayaan yastawfuuna aliktiyaal waay yani beegashada dhammaystirta si dhammaystiran bay u qaadanayaan waxba inay ka tagaan ma ogola wax yar ka tanaasuli maayaan waidaa goortii kaaluuhum ay dadka u beegayaan aw amase wasanuuhum ay dadka u miisaamayaanna yukhsiruuna way dhimaan waa baksiga laa tabkhasu nnaasa ashyaa'ahum waay way nusqaaminayaanoo xaqii dadkay qaar ka reebanayaan waxbay ka sirayaan waxbay ka khayaamayaan markaasaa alla tabaaraka wa tacaala wuxuu yidhi dadka noocaasi miyaynan ogeyn dannadani bimacnaa alcilm walyaqiin baa laga dhigayaa alaa yadunnu miyaysan ogeyn ulaa'ika kuwaasi annahum iyagu mabcuuhuuna kuwa la soo saaraya inay yihiin bimacnaa ruux ku tala gashan oo rumaysan in la soo saari doono oo uu soo bixi doono maalin weynna uu imaan doono oo maalinkaasi sugayo sidaa ma sameeyo ruuxa marka iimaankiisa iyo ictiqaadka noocaasi iyo alkacabsigaas iyo aakhare xusuusteediiyo markay ku yaraato markaasuu xuquuqda bini aadamka cunaa markaasuu duudsiyaa markaasuu wax nusqaamiyaa laakiin ruux rumaysan maalinkaa weyn baad soo bixi doontaa yani wax weeye kaasi waa is-ilaaliyaa alaa yadunnu miyaysan ogeyn ulaa'ika kuwaasi annahum iyagu mabcuuhuuna kuwa la soo saaray inay liyowmin cadiim waa maalinta aakharo waay lanna waa maalin weyn oo sida yani wax weeye qur-aanka meelo badan aan soo marnayba yani maalin weyn waaye oo caalamka dhan ku weyn oo isbedello waaweyn ay dhacayaan oo addoommadii ku weyn oo ku culus maalinkaa wey yowma yaquumu nnaasu lirabbi alcaalamiina maalinkaa dadku way soo kacayaan qubuurtoodii iyo godkii ay galeen bay ka soo kaakacayaan maxay u soo kacayaan lirabbi alcaalamiina uunka rabbigii xaggiisay u soo kacayaan waxay imaanayaan bankii qiyaamada waxay hortegayaan rabbigood tabaaraka wa tacaala waa lala xisaabtamayaa
waa lala lafagurayaa acmaashoodii waa lala fatashayaa wax alla waxay sameeyeen iyo hawlihii oo dhan waa maalin weyn marka nabigeena sallallahu alayhi wasallam kama fi sahih al-bukhari min hadith ibn umar nabigu sallallahu alayhi wasallam yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin wuxuu yiri maalinka markay dadku soo kacaan qoraxda la soo dhaweynaya bankii qiyaamada la joogaa markaasa yaani qadra miil ayaa dadka loo keenaya madaxa loo soo saaraya markaasa ruux dadkii way dhididayaan dhididkoodii baa intuu hoos aadu kor u soo kacaya markaasay qaar kamida dhididkoodii baa liqaya dhididkii baa liqaya qaar wuxuu u qabanayaa ilaa dhagaha qaar wuu xakameynaya afka qaar wuxuu u qabanayaa intan qaar ruuxul badambigiisu intuu ahaa maalinkaasi marka waxa way dhididkaagii aad dabaalanayso oo dhididkaagii aad ku dhex jirto qoraxdiina ku kor saaran tahay hawlo ka daranna ku sugayaan maalinka noocaas oo kale hadii aad ku tala gashan tahay xuquuqda aadamaha waad iska ilaalin waa yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin sidaas way macna waxay soo kacayaan hadana qubuurta ka soo kacayaan ayaga oo dadku qaaqaawan yihiin ayaga oo kabala ayagoo buuriya qabo qashinkii laga gooyo dhan ku yaalo aad u foolxun oo xaaladooda ilaahay uu ogsoon yahay ayay hadana qubuurta ka soo kacayaan halkaasana loo socdaa yaani xaalad midba ka dambaysa ka sii daranta marka halkaas ku socotay dadka xuquuqdooda iska ilaali waay oo suuqa iyo ganacsiga wax kala iibsiga ka taxadar kalla inna kitab al-fujjar la fi sijin wama adraka ma sijin kitabun marqum waylu yawma idhin lil mukaththibin halka waxa laga bilaabay sida caadada quraanku uu yahayba dadka laba qaybood way dadna adduunka markay joogeen dad ilaahay ku xidhan oo xuquuqdiisa gudanaya oo toosan bay ahaayeen dadna dad xun bay ahaayeen labadoodaasi meeshii kala aadayaan iyo say kala yihiin ayaa laga hadlaya kallaha ka joogeen haddaayeen fududaynta ay miisaanka fududaynaya dhimista ay xuquuqda dadka dhimayaan haddaayeene inna kitaab al-fujjaari faajiriinta kitaabkoodu dadka xunxun kitaabtoodu la fi sijiinin يعني وحو أهذي سجين دحدادا طيب وما أدراك محاكو أغيسي كتاب الفجار وحوي يعني ووحي لغا قري واي الكتاب بمعنى المكتوب واي وحياله لغا سو دياريه لغا سو قري إياغا محو أهاي أي سمين جرين أدونك مركي جوغين ملائكتو كسو قرتي هي لفي سجين دحدي سو هذا وما أدراك محاكو أغيسي ما سجين وحو ياهي محاكو أغيسي محاد كوكتا محاد كلا صعطاوا كتاب وكتاب والديوان مرقوم أول قري بمعنى ددك حنحنكا أعماشي لغا قري سجين ميلا هذا سجينك وكا قرآن كفسري آيات كدن بيسا فسرتي سجينك والديوان أعماشا ددك حنحنكا لغو قرو سجينكاسي مركا dhulka hoostiisu jira todobada dhul meesha ugu hooseysu yaala لأن السجين لغة العربية وحليلها بمعنى الضيق وعريرك بينما محانو تجي دونادتك وناكسن أعماشو دي أي سمين أيام وحيكو يعلن عليين تنميش أوسر ريسواه مركا وحيليهن علمادو روحا كلما dhulka hoos loo sii aado ciriiri buu sii noqonayaa markastoo kor la aadana waasac buu noqonayaa oo kor markastoo loo sii baxaba yaani waxa way waasac buu noqonayaa dhul waxa loo tagayaa wusci baa loo tagayaa hoos marka la aadana ciriiri baa la aadaya marka meel ciriiri ah oo mugdi ah oo todobada dhul hoostooda halkaas ayaa diiwaanka wuxuu yaalaa lagu qoray dadka xunxun acmaashooda halkaas u jira طيب hoos baa la aadinaya لأن وحوي نارتي بهوس جرتا نارتي ماشي هوين لها هوياتكودي با halka jannaduna kor bay jirtaa qoliyaha wanaagsan diiwaankooduna kor buu jiraa kuwa xunxunna diiwaankooda hoos buu jiraa halkaas ay ku gal qoreen kalla inna kitab al-fujjar kuwa xunxuma muxuu ahay dambiilayaasha aha waxyaalihii laga qoray ee laga soo diyaariyay la fi sijin dhexdiisu ahaaday wama adraka maxaa ku ogeysiiyay ما سجين وحيا ولا وينينيا محد كوكتاي محد كلا صعطاوا كتاب وديوان مرقوم أول قري أما إن أي
sijiin lagu qoro meesha la geeyo ugu hooseysa waa kitaabun waa arin la qoray oo marquumun waa kitaab qoran buu ahaa waa wax la qoray oo ilaahay waa hore u dhameeyo mafruuq minhu waylun yawmaidin lilmukadibiin maalinkaasi marka maxaa dhacaya halkaa inay ku qoran yihiin oo hoos la aadiyey oo habaar ku dhacay garanay laakiin seebu xaalkoodu noqonaya waylun halaag yawmaidin maalinka waa maalinka lasoo kaakacay lasoo noolaadee yawmaidin maalinka lilmukadibiina kuwa beeniyey buu u sugnaaday maxay beeniyeen aladiina kuwaasoo yukadibuuna beeninaya biyowmi ddiini is-abaalmarinta maalinkeeda maalinka addoommada ruux walba abaalkiisa la marin doono wuxuu sameeyeyna xisaabteeda la siin doono maalinkaasay beeniyeen oo diideen way inkireen waa ku gacansaydheen ayb wamaa yukadibu mana beeniyo bihi maalinkaasi ilaa kullu muctadin mid xadgudba dhammaantii mooye ahiimin oo haddana dembi badan maalintaasi lays abaal marin doono ee iyada dhanba yowmu addiin waljazaa la yidhaahdo waa maalinkii is-abaalmarinta leanna adduunyadan aynu jooginayo noloshan hore ruux walba isagoon abaalkiisii oo dhammaystiran helin buu baxayaa yuu tegaya kii xumaa isagoon xumaantuu la yimid aan abaalkeedii la siinin kii wanaagsanaa camalkii uu la yimid wanaaggiisii abaalkii uu mudnaa isagoon la siinin ayaa adduunkan laga tegaya maalinka ilaahay u dibdhigay marka waa maalinka cadaaladda waaye maalinkaas yowmuddiin baa la dhahaa ma beeniyo marka dadka ayaa beeniya dadka beeninayay waa ruux acmaashiisuna xadgudub ku salaysan tahay oo xaaraan iyo xumaanta inuu qasto caadadiisa ay tahay athiim ahoo carabkiisa iyo afkiisuna dembi badan yahayoo been iyo khiyaano iyo ballanka bax iyo waxaasi ku sifaysan dhaqankiisuna waa xadgudub afkiisuna waa athiim ruux noocaas oo kalea yacni wax weeyaan ruuxa aakhare beeninayay waa ruux aan wax xad oo xidho jirin wey macnaha afkiisa iyo adinkiisa toona wax xidhaayo ma jiro leanna ruuxa sidiisaba waxa xakameeya oo xidha oo ilaaliya waa inuu ku talagashan yahay waxan uu samaynayo inuu abaalkeeda heli doono in la iskaga daba imaan doono inuu sidaa ku fakanaynin sidaa markuu ruuxu ictiqaadsan yahay waxaa saaran korkiisa marka ilaaliyaa saaran waa is-ilaalinaya taasuu ku talagashan yahay ama hadduu taas beeniyo markaasi wax weeye xadgudub iyo qasasho iyo wuxuu doonuu samaynaya fasaad wax alla wuxuu doonuu markaas samaynaya macnaha sidaas wey wamaa yukadibu ma beeniyo bihi maalinkaasi abaalmarinta ilaa kullu muctadin mid xadgudba oo afcaashiisa iyo xubnihiisu xadgudbaan athiimin oo haddana dembi badan oo aqwaashiisa iyo hadalkiisana ku dembi badan oo been iyo khayaano iyo laqdabo iyo ballanka bax dhaqankiisa uu yahay kaa unbaa beeniya idaa goortii tutlaa la akhriyo kaasoo idaa goortii tutlaa la akhriyo calayhi korkiisa aayaatuna aayadahanagii lagu dul akhriyo qaala wuxuu yidhaahdaa asaatiiru lwaliina aayadahani ummadihii hore kutirikuteentii laga soo qoray waaye sheeko baraleyda iyo kutirikuteenta ummadihii hore sheekooyinkii laga soo qoray ee beentahay waxba ka jirin ee yani maaweelada iyo uun wakhtiga laysku dhaafiyo waxaas waaye waxaan maxamed la yimid yani waxa weeye saatiiru lwaliina iktatabaha waaye meeluu ka soo guurguuriyo oo ka soo qorqoray sheekooyinkan ummadihii hore uu nooga sheekaynayo waxaasi waxa weye waa yani waxa weye waa sheeko baraley waay sidaasay dhahayaan marka aayadaha lagu dul akhriyo bimacnaa markii aayadahan ilaahay aakharo iyo abaalmarinta iyo in layska daba imaan doono iyo xisaab iyo markii loo sharxo bedelkay yani waxaway qalbiga u furi lahaayeen oy u fiirsan lahaayeen oy rumayn lahaayeen markaaba waxay la soo boodayaan waa warku tirigteen waa been bay leeyihin meeluu ka soo urursaday idaa goortii tutlaa la akhriyo calayhi korkiisa aayaatuna aayadahanaga lagu dul akhriyo qaala wuxuu yidhi oo dhahayaa way asaatiiru lwaliina hiya iyadu asaatiiru lwaliina ummadihii hore beenihii laga soo ururiyey wey laga soo qoray axaadiistoodii abaadiishii laga soo qoray ee ummadihii hore oo la qurqurxiyo waxaas way leeyihin kalaa ha ka joogeene hadalkaa ha daayeene beeninta ay maalintaa beeninayaan ha daayaan aayaadka ilaahay sidaa ku sheegayaan ha daayeen arrinku saa ma ah bal iskaba dhaafe
raana waxaa daboolay calaa quluubihim qalbiyadooda korkooda waxaa daboolay maa shaygii kaanuu ahaan yagsibuuna kuwa kasbada. mushkiladu meeshay ka haysato waxay tahay waxay aayaadkan ilaahay u fahmi la'yihiin xaqaa'iqdan jirtana ay isaga indhatirayaanoo u diidayaan. mushkiladu meeshay ka haysato waxay tahay qalbigoodaa daboolan. qalbigoodu inuu daboolmo waxaa keenayna wuxuu ahaa dembiye ay galeen oo badanoo isfuulfuulay baa wuxuu keenay qalbigii inuu daxalaysto oo uu wasakhoobo oo uu daboolmo, kadibna waxba ma fahmi karaan, khayrna ma geli karo, yacni wax muxuu ahay wanaagana ma qaadanayaan, leanna meeshii wax laga qaadan laha wax laga fahmi lahaa waa qalbiga. ayib sida nebigu inoo sheegayna sal alla alay wasalam quluubta bini aadamka waxaa daboola oo khayrka u diida oo xidho iyada dhan waa dembiyada. waa dembiyada oo quluubtay wasakhaynayaan, sida xadiidka abu hurayra uu tilmaamayo tirmidi ibn maaja ay soo saareen uu nebigu yidhi sal alla alay wasalam ina alcabda idaa akhطa'a khatii'a, addoonku hadduu gef galo, hadduu dembi sameeyo, nukitat fii qalbihi nuktatun sawdaa, dhibic madow ayaa qalbigiisa ku dhalanaysa. faidaa huwa nazaca wastakfara wataaba saqula qalbuhu, markuu yani dembiga uu galay qalbigiisiina daxasha iyo dhibicda madow ay fuushay, hadduu intuu isxusuusto dembigii ka tago oo ilaahay dembi dhaaf weydiisto oo ka toobad keeno, qalbigii markaa waa sifoobayaa, dhibicdii madoobayd iyo wasakhdii waa laga tiraya, daxashii waa laga sifaynaya. ayb wain caada ziida fiiha xataa tacluwa qalbahu bu nabi sal lay waslam, hadduu dembigii intuu sameeyo oo haddana ku noqdo oo haddana ku noqdo oo ku laalaabto uusan ka soo noqonin, qalbigii dhibcihii madmadoobaabaa markaas wada daboolaya, isagoo dhan marka waxaa ka kormaraya madow baa ka kormaraya. markaasaa wuxuu yidhi wahuwa araan aladii dakara allah kalaa bal raana calaa quluubihim ma kaanuu yagsibuun. arinta ilaahay uu aayaddaa ku sheegay waa taasuu nebigu yihi sal lla alay wasalam, quluubtooda daxasha iyo wasakhdaasaa fuushay. mar haddii qalbigu xidhmo oo qalbigii wasakhoobo oo daxashaasi fuushana meelay wax ka galaan ma jiro. marka waa inuu marka la soo istaago xaqaa'iqda inuu inkiro waayo. qoraxdaa bannaanka taale waa inuu yidhahdo ma jirto. aayaadkan ilaahay cadcad waa inuu yidhaahdo waa sheeko bereley iyo been la soo ururiyey, leanna waxa weeye qalbigiisiibaa mushkiladu waxay ka haysataa qalbigiibaa wasakhaysan oo muxuu ahaayey daboolmay wey macnaha. kalla ha ka joogeene bal iskaba dhaaf, raana waxaa daboolay calaa quluubihim qalbiyadooda korkooda waxaa daboolay oo ka kormaray maa kaanuu waxayan yagsibuuna kuwa kasbada. macnaha waxay tilmaamaysaa ilaahay ma dulminin, quluubtoodan wasakhowday xidhantay waxay ku timid dembiye ay galeen sababteed. falamaa zaaquu azaaqa allahu quluubahum waay, iyagaa leexday oo la keri waaye, kadibna ilaahay baa quluubtooda leexiyey. wanaaggii bay diideen, markaasaa quluubtoodii la daboolay. marka waxaad kasbatay iyo dembi aad gashay ayaa wuxuu keenaa dhibaatada ku dhacda qalbigaaga, kadibna noloshaadoo dhan saamaynaysa. kalaa inahum can rabbihim yowmaidin lamaxjuubuun. halkanaa marka waxaa laga galay aakhare maxay ku leeyihiin. waa kan marka adduunka inay aakhare beeniyeen, xadgudbeen, dembi oo dhan qasteen, ilaahay aayadihiisii diideen, quluubtoodu daboolantay, la soo sheeg aakhare xaalkooda soo noqonaya. kallaa ha ka joogeene inahum iyagu can rabbihim rabbigood xaggiisa yowmaidin maalinkaa lamaxjuubuuna kuwa laga xijaabayo waay. maalinta qiyaamada rabbigood ma arkayaan, waa laga qarinayaa, waa laga xijaabayaa. waa cuquubo wey, waa cuquubo. ilaahay baa wuxuu ku cuquubaynayaa inuu iska qariyo oo xijaab iyaga iyo isaga uu xijaab u dhexaysiiyo. ayib aayaddaasi waxay u deliishadeen culimmada sunnada, gaar ahaan imaamu shaafici iyo imaamu axmed iyo keyrkiiba waxay u deliishanayaan mafhuumka aayadday deliishanayaan oo waxay leeyihiin haddii gaaladii ilaahay ku ciqaabay inuu iska xijaabo aakharo, waxaa laga fahmayaa inuu ilaahay mu'miniinta ugu nimcayn doono inay daawadaan oo istuso alla tabaaraka watacaala oo ay arkaan ilaahay wejigiisa ay daawadaan. masaladaasay aayadda ka fahmeen. maxaa yeelay gaalada cuquubada ugu badan ee aakhare la ciqaabo waa in ilaahay tabaaraka watacaala laga xijaabo. naartay galeen waxaa u dheer ilaahay oo iska xijaabay.
mu'miniintana ilaahay wuxuu ugu nimcayn doonaa nicmadii uu gaalada u diiday oo uu ku ciqaabay inuu u diido ayaa mu'miniinta ilaahay u furi doonaa oo ilaahay tabaaraka wa tacaala mu'miniinta uu isu muujin doonaa wayna daawan doonaan saasay ka faa'iidaysteen mafhuumka aayadda ay ka fahmeenna aayado kala yani si cad ugu dhawaaqay oo mantuuq ah sida rabbi tabaaraka wa tacaala yani waxa weeye suuratu alqiyaama allah yidhi tabaaraka wa tacaala wujuuhun yowmaidin naadiratun ilaa rabbiha naadira wejiyada qaarkood maalinta qiyaamada way dhalaalaysaa rabbigeedna way daawanaysaa rabbigood bay fiirinayaan axaadiista nebiga sal lay wasalam mutawaatirka ana way ku timid xadiis aan la tirin karin oo xaddu tawaatur gaadhay weeyaan axaadiista ku soo aroortay inay mu'miniintu maalinta qiyaamada rabbigood daawan doonaan tabaaraka wa tacaala oo waxaa ka mid a xadiista saxiixaynka iyo keyrkood ku yimid mu'miniintu waxay weydiiyeen saxaabadu nebiga waxay weydiiyeen yaa rasuul allah hal naraa rabbigana miyaan arkaynaa maalinta qiyaamada markaasuu nebigu wuxuu uhi sal lay wasalam miyaad isku cidhiidhiyeysaan miyaad isku dhibaysaan dayax habeenku ugu dhammaystirnaa jooga 15aad 14aad jooga fiiradiisa ishiinu inay qabato miyaad isku dhibaysaan mise isku xidhiidhiyeysaan maya bay dhaheen ruux walba meeshuu taagan yahay soo ka arki maayo sidaasoo kalead rabbigiin u arki doontaan buu nebigu sal lay wasalam marka mu'miniintu rabbigood bay daawan doonaan bal nicmo ilaahay uu siiyo mu'miniinta jannada markay galaan nicmo ay helaan waxaa ugu qaalisan inay ilaahay wejigiisa daawadaan nabigu wuxuu ku fasiray sal lay wasalam liladiina axsanu alxusna waziida waa sheeka bereley nala dhaafa waxii laydinku kari lahaa waata maad haysaan wey macnaha afa sixrun haada ama antum laa tubsiruun war ma sixrantiin mise idinkan wax arkayni waay soo xaqiiqa maa middan maanta aad haysaan aad ku dhex jirtaan saasaa la leeyahay maxaa saa loogu leeyahay yani tabkiit bale taqriic saas wey macnaha yani qalbigaa laga jabinaya qalbigaa laga garaacaya waa ka kii aad diidi jirteen baa gubta yani wax weeye ogala ayib intaasi marka waxa wey waa dadkii allahooda tabaaraka wa tacaala ka xadhig furtay oo la kari waayo fujaarta ahaa ayaa halkaasi arrinkoodii lagu gabagabeeyey dhanka kale kuwii wanaagsanaa xaalkooda kallaa ha ka joogeen yani kallaa arrinku sidaa ma ahe ama kallaa ka jooga kasabka aad raanka iyo daxasha kasbanaysaan iska daaya ama kallaa arrinku saa ma ahe ina kitaaba alabraari baariyaalka dadkii ilaahay ateeci jiray ee ilaahay ka baqi jiray ee ilaahay baariyiinta u ahaa wixii laga soo qoray la fii ciliyiin dhexdeedu ahaaday wamaa adraaka maxaa ku ogeysiiye maa ciliyuun waxay tahay maxaad ka ogtahay waa laguu sheegi rabaa laakiin intaan laguu sheegin baa shaygu inuu weyn yahay oo khatar yahay oo mudan yahay in la raadiyaa laguu sheegaya wamaa adraaka maxaa ku ogeysiiye maa ciliyuun warkeeda ma haysaa wey warkeeda maxaad ka ogtahay ayib kitaabun waa kitaab marquumun oo la qoray waa diiwaan qoran oo 7 samo korkooda ayuu jiraa halkaasaa waxaa ku qoran acmaashii dadka wanaagsan ee baariyiinta wanaagay la yimaadeen halkaasuu ku qoran yahay waa diiwaan weyn oo wax kasta oo la samaynayo addoommadu samaynayaan oo wanaaga ayaa lagu qoraa dadka abraarta iyo dadka wanaagsan wanaagooda halkaasaa kula qoraa macnaha waxay culimmadu leeyihiin yani saan soo tilmaannayba sijiinka yani waa cidhiidhi iyo hoos ciliyiinkana waa waasac iyo kor oo waxay leeyihiin hawada mar kastoo kor loo sii aadaba wusci baa la aadaya yani waa waasicnimo iyo waa ballaadhanaya hoos mar kastoo lasii aadana waa cidhiidhi waxaana ugu cidhiidhsan baa la yidhaahdaa markasul ardi meeshay dhahaan dhulka santarkiisa marka hoos la aadoo la dego 7 dhul meesha ugu hooseysa ugu cidhiidhisan waana halkaas sijiinka ciliyiinkuna waa 7 samo korkooday leeyihiin ayib saasaa loo kala baxay marka ina kitaaba alabraari la fii ciliyiina wamaa adraaka maa ciliyuuna kitaabun marquum waa kitaab la qoray waa diiwaan qoran waa yashhaduhu waxaa xaadiraya kitaabkaasi almuqarabuuna malaa'igta la dhoweeyey ee ilaahay agtiisa laga soo dhoweeyey waxay leeyihin culimmadu yani shayga marka la weyninayo qoraallada munaasabaa loo sameeyaa madaxda iyo dowladaha iyo shayga marka la weyneynayo qoraal muhima markuu yahay waxaa loo sameeyaa dad magacalaa la isugu yeedhaa
madaxweynayaal baa yimaada wasiiraa yimaada dad magacle baa yimaada yani waxa way waa la soo xaadiriyaa waa la weyneeyaa kan marka malaa'igta ilaahay ka agdhow baa xaadirta diiwaankani sida uu u qiimo badan yahay malaa'igtii ilaahay agtiisa u dhoweyd baaba xaadirayso oo tagayso macnaha waxa weeye yani munaasabadiisa iyo hawshiisa ay tagayso xaadirayso waa ayib sidaas weeye ina alabraara halkaasi diiwaankooda hadduu yaallo iyaga xaalkoodu seebuu noqonaya aakharo ina alabraara baariyaalku la fii naciimin shay laysugu nimceeyo dhexdiisay ku jiraan wax barwaaqo iyo nicmo hadday jirtaba iyaga ku dhex jira dhinac walba leh wax la cuno dheh wax la cabo wax lagu faakahaysto wax shahwo lagu guto wax la daawado yani waxa weeye wax walba dheh wax laysugu niceeyo dhammaantii bay ku dhex jiraan cala alaraa'iki sariiraha korkooda xaalay ku sugan yihiin bay yanduruuna fiirinayaan ama cala alaraa'iki yanduruuna sariiraha korkooda iyagoo ah bay daawanayaan araa'igta waxaa la yidhahdaa waa sariir khaasa waxaa la yidhahdaa naamuusad balen ama naamuusa yani sariiraha arooska waaye waxaa jirta carabtu waxay samayn jireen ruuxa arooska ah sariir baa loo dhisay sariirta korkeeda marka waxaa lagu dhisayaa teendha yar oo kale oo aad loo qurqurxiyey marka waxaa la yidhahdaa naamuus waa sariir korkeeda teendha yar lagu dhisay aadna u quruxsan oo la nashnaashay oo la dhaldhalaaliyey waay taasaa la yidhaahdaa araa'igta waa jamcu ariika cala alaraa'iki sariiraha korkooda xaalay ku sugan yihiin bay yanduruuna fiiran iyagoo jannadii jooga oo barwaaqadii ku dhex jiro sariirahooda ku dangiiga ayay haddana daawanayaan maxay daawanayaan ibnulqayim wuxuu leey caleyh raxmatullah waxay daawanayaan waa ilaahay wejigiisa sidaana waa tafsiir sax leanna xataa haddii la yidhaahdo waxay daawanayaan ilaahay karaamadiisa iyo nicmadii barwaaqada la siiyey bay daawanayaan haddii la yidhahdo ama haddii la yidhahdo xataa gaaladii dhibka u geysatoo naar ku jirtay daawanayaan fiirsanayaan silca iyo rafaadka haysta waxay fiiriyaan waxa ugu muhiimsan oy daawadaan ilaahay wejigiisa saas daraaddeed yanduruunadaasi sida midda dambeba imaan doontaba ilaahay daawashadiisa in lagu fasiraa fiican tacrifu waad garanay fii wujuuhihim wejiyadooda dhexdooda waxaad ka garanaysaa nadrata naciimi shaygii laysugu nimceeyey dhaldhalaalkiisa waa la kala yaqaanaa ruuxu markuu rafaadsan yahay oo gaajaysan yahay oo silicsan yahay wejigiisay ka muuqataa laakiin markuu barwaaqaysto oo dhergo oo nasto yani warkaa wejigiisay ka muuqaneen marka barwaaqada iyo nicmada ay haystaan wejigooday ka muuqataa jidhkooday ka muuqataa way macnaha tacrifu waad garanaysaa fii wujuuhihim adigoon muxuu ahay aan xataa barwaaqadii ku jiraan arkin haddaad ayaga aragto keligood wejigooda waxaad ka akhrisanaysaa dad ladan inay yihiin dad barwaaqo ku jiroo ladan inay yihiin baa wejigooda markaaba ka garanaysa tacrifu fii wujuuhihim nadratan nadradu waxa waa dhaldhalaalka iyo iftiinka iyo ruuxa barwaaqaysan wejigiisa waxa ka muuqda waa annaciimi shayga laysugu niceeyey dhaldhalaalkiisa ayaad wejigooda ka garanaysaa ood ku arkaysaa way macnaha yusqawna waa la waraabini min raxiiqin khamro saafi ah xaggeedaa laga waraabin makhtuumin oo la afxidhay yani ila aakhare khamra taalla waa ka nebigu uri sal lla alay wasalam khamrada adduunyada ruuxii cabba midda aakhare cabi maayo khamro waxaa taalla aakharo yani waxa weeyaan webi qulqulhayo khamro ah waay laakiin khamradan adduunyadan oo kale maaha madax xanuun ma leh oo muxuu ahay maanteg male maankaagu ma tegayo oo lama waalanayo oo ma qarmuuna oo lagu rafaadi maayo waa iyada dhan waa macaanta waana marqan ayib marka yusqawna waa la waraabinayaa min raxiiqin xataa khamrada markay cabayaan ayagu ma raadsanayaan yusqawna waa loo keenaya waa la waraabinayaa min raxiiqin khamro saafia xaggeedaa laga waraabin makhtuumin oo la afxidhay yani waxa weyaan afkay ka xidhan tahay iyaga cid aan hayn ma gaadhin way diyaarsan tahay laakiin waa lasoo afxidhay khitaamuhu raxiiqaasi ama khamradaasi inta ugu dambaysaay miskun waa miski khitaamka laba macno la yidhaahdaa ama waxa afka kaga xidhan baa miski ah oo haddii miskigu waa cadarka ka ugu udgoon waayo hadduu miski afka kaga xidhan yahay wixii gudaha ku jiray ka waran daboolkiisu hadduu miski yahay gudaha maxaa ku jira soo kama cajiibsano waay taa waa macnaha kaloo la yidhahdo waxay khitaamuhu waa inta ugu dambaysa ee gororka ugu dambeeya ee la himaarsado yani markaad cabto inta ugu dambaysa gufarka ah ee inta badan la iska badaadiyaba ayaa miski ah
oo inta ugu dambaysay la daadin lahaa haddayba miski tahay intii kale see waay marka sidaas way macnaa khitaamuhu miski waa وفي ذلك أرنكا دحديسا فليتنافس هترتمين المتنافسون كوة ترتمية كوة نقتمية كوة أرتمية كوة يعني وحوي أهر مرية ترتن ميشا صامدان الدنيا معها الدنيا دان هلاك سميسي بابا إيسي لغيك لتغييد كتغيسي مركا توقتنا لغور رفاسية معها واح ترتن لوغلو ترتن وحا لوغلا أو غير كائنات كغهر مرتا اسكو دايدا ووحا لغسو شيكي معنا لمثل هذا فليعمل العاملون تاسو كله الله شقيستوا وناغا iyo khayrka laga soo sheekay u shaqeyso khayrka ka badso tartan gal Soomaaliyeed sidaas la leeyahay wa mizajuhu rahiqasi waxa lagu barxayay min tasniimin isha tasniim leeyahay xageedu ka ahaada saas macnaha dadka abraarta khamrada saafida waa loo barxayaa wixii kala dhanbay saafi ka tahay laakiin waxa lagu barxayaa il tasniim la yiraahdo il tasniim la yiraahdo ayaa xageeda laga keenay markaas lagu barxayaa isha tasniim la yiraahdo waa il durduraysa magacaas le tasniim baa la yiraahdaa waxaana la yiraahdaa waa a'la ashribati ahli aljanna jannada waxyaalaha lagu cabo waxa ugu sareeya waa isha tasniima tasniim baa marka qayb laga keenay khamradana loogu darayaa طيب عينا حال أي تهي تسنيم كاسي إل دردريس أو يشربوا أي عبيان بها إيادا أي كدر جيان المقربون كوا الإلهي حق تسلق سودوي مؤمنين توحلوقي بأبرار يا مقربون مقربين تاسرية أبرار تو أصحاب اليمين مقربين تامرك كسي سرية وكوا إلهي حق تسلق سودوي وكوا القرآن مالك اللغة المامي والسابقون السابقون أولئك المقربون مقربين تامرك إيش التصنيم ليدا هذا waxay ka cabayaan ayadoo waxba lagu darin iyadoo saafi cabayaan waliba way ka cokananayaan oo way ka dhergayaan oo waxa ku tusaya yashrabu bihada lagu gudo bimaana way ka dhergayaan waa iyadoo saafi ah amma muqarrabiinta dadka ka soo haro ahlul iimaanka oo abraarta ah oo ashaabul yamiinka ah iyadoo saafiya la siin maayo waa loo barxayaa misaajuhu wax kala loogu barxayaa طيب وعنا كتوسيا آيات كلا القرآن كرب الله تبارك وتعالى يشربون من كأس كان مزاجها كافورا والله برحيا وحكلا وحيابا كلا أيا لوجو برحيا أبرارتا مقربين تنوحي عبيان يضو الصافية ومحول لوجو برحيا إنت بركي لجزو شيكي أيا هدنا وحال لوجو ذكر آيات لوجو ختمة يا صورة ده قال هذا يجيب كي مؤمنين تكوهين إن الذين كوا أجرموا يعني جرائمتي الدنبية السمي وقال هذا كانوا وحيا أدونك مركي جوجين من الذين كوي حق وذا آمنوا الرمي يضحكون كوكو قصقصلا وقال هذه قريشية قال هذه لم يتكاهد مؤمنين تتورت الدرن محوها هاي مثلا عمار يا صهيب يا بلال يا مؤمنين تي أي يسي تشرين وحقيري تشرين أي كوكس قصلا يعني مركي صومرة كانوا من الذين آمنوا ويكون مات سنة أروح عن فير زي ويالان راح يسوي يالان فيري مركاسي قصقص لهيان وكما سنه واذا قرت مروا اي مؤمنين تمران بهم ايغا markay soo maraan yataghamazuna wa isu ilchabinayaan hoosta ka xamarayaan ishay ka xamarayaan misqan dhuufanayaan waxa fiirsay u yaalan bay leeyihiin ayagaas shaqo ka dhigteen alla wuxuu tabaaraka taala waida qorti inqalabu gaaladaasi ay gadoomaan ila ahlihim ehelkoodii guryahoodii reerahooda markay u noqdaanna inqalabu way gadoomayaan fakihuna iyagoo ku faakihaysanay iyagoo macmacaansanayo mu'miniinta wax ka sheegooda ku macaansanay caydooda lagaadadooda ku jeeskooda ayagoo ku macmacaansanayo ku faakihaysanay bay guryahooda ku noqonay waxay ahaan jireen kacbada hareeraheeda intay soo fadhiistaan oo galabtii iyo habeenkii saga caweeyaan ayay mu'miniinta ciday arkaanba ayay xantaan oo ku jeesaan oo ku xadgudbaan oo hakada saasay ahaayeen وإذا قرتي رأوا أي قالوا أركان هم مؤمنين تامركي أركان قالوا وحيدهيان إن هؤلاء كوني لضالون وكلهم صن وربلو حنفير سي وهبوسين والله بين والمحل مي حيكتن دقك أو يشهد أبا يشهد بلو حنفير إنه وحيستان باسمه ده واللونسين طريقة كلهم وآخرين بلي الله وحده وما أرسلوا والحال بيساليهن
maa ursiluu aan loo dirin calayhim korkooda xaafidiina xaalay ilaalinayaan yacni inay ilaaliyaan oo waxay samaynayaan ay dabagalaan oo ay wax ka sheegaan looma dirin yaa u dirsaday ayaga camalkoodaa loo diray ilaahay rumeeyaa la yidhi ishagaajiyaa la yidhi laakiin addoommo kaleoo ilaahay caabudaya dabagala oo xanta oo ku jeesjeesa oo wax ka sheega oo waa lunsan yihiin yaa idiin dirsaday yaa hawshaa idiin diray waa walxaal bay sidaa odhanayaan maa ursiluu aan la dirin xaafidiina xaalayin kuwa ilaalinaya calayhi muminiinta korkooda inay ilaalinaan oo camalkoodii waxay samaynayaan oo ay miisaamaan oo xukumaan oo way lunsan yihiin oo waa khaldan yihiin oo waa kan oo waa keero yaa u dirsaday waa ayib falyowma maanta marka aladiina kuwa oo aakhara ah alyowma maanta aladiina kuwa aamanuu rumeeyey min alkufaari gaalada xaggooda ayay yadxakuuna ku qoslayaan yani kamaa tadiinu tudaan waay aljazaa min jinsi camal sidii ay adduunka markay joogeen gaaladu ay muminiinta ugu maadsan jireen ayaa aakhare markay tagaan muminiintii baa ku maadsanaya gaaladii markay arkaan odayaashii waaweynaaye kibiraaniyiinta ahaa madaxdii raggii dhaqaalaha lahaa wixii madaxyaweyn ahaa oo intay cadaabka galeen yaa cabaadahaya oo say u yaalaan oo foolxumada oo intay fiiriyaan bay iyaguna ku maadsanayaan oo ku qosqoslayaan leanna wax weeyaan ilaahay sunankiisay ka mid tahay sida aad ka dhaqan yeelato in abaal lagugu abaalmariyo saad u dhaqanto in adigana abaalkeeda lagu mariyo haddaa dadka awliyada ilaahay iyo akhyaartaa ilaahay caabudaysa lagaa kari waayo adigana meeshaad marto unbaa lagu mari saad ula dhaqanto bay aakhare lagula dhaqmaya way macna faaladiina aamanuu min alkufaari yadxakuun cala alaraa'iki sariiraha korkooda xaalay ku sugan yihiin ayay yanduruuna fiirinayaan maxay fiirinayaan tii horey la midta waxay fiirinayaan ilaahay wejigiisay daawanayaan ama barwaaqada jannada taalla ayay daawanayaan oo markay sariirahooda ku fadhiyaan oo ay halkaa ku jiraan yani waa sidii iyagoo muraayad ku jiroo kale waay markaad hadda muraayad ku jirtoo kale waxa bannaanka o dhan sooma arkaysa sidaasoo kale waay cala alaraa'ika yanduruun ama ilaahay wejigiisay daawanayaandheh hal huwiba ma la abaalmariyey marka alkufaaru gaaladii maa kaanuu waxay ahayn yafcaluuna kuwa sameeyey waa su-aale halkaa haddii la dhigay sidaana loogu jeesjeesay oo loogu qosqoslo loogu maadsaday gaalada abaalkoodii ma heleen oo waxay samayn jireen abaalkeedii ma heleen waay ma la abaalmariyey cadaalad ilaahay waay tabaaraka watacaala hal huwiba ma la abaalmariyey alkufaaru gaaladii maa kaanuu waxay ahayn yafcaluuna kuwa sameeya abaalkeedii ma heleen jawaabtu waa haa hada wabillahi towfiiq wsali allahuma wslm wbaaraka cala nabiyina moxamed wcala alihi wsaxbi waslem jazaak allahu khayran khayr aljaza daawadayaal tafsiirkaas wuxuu si toosa idinkaga imaanayey masjidka abubakar asidiiq ama sigiska ee magaalada nairobi waxaana soo jeedinayey sheekheena sheekh maxamed cabdi umal haddana waxaan gudagelaynaa wixii aan ka gaarno su-aalaha maadaama waqtiga uu ciriiri yahay sheekh saa'ilkan wuxuu leeyahay waan ku salaamay salaan kadib waxaan qabaa sokor waxaan niyeystay hadday igu kacdo sokorta inaan furo maalintii haddii aysan igu kicinna aan sii wato soonkaygii marka niyadda labada ah soonkayga wax mau dhimaysaa bismi illahi raxmaan raxiim jawaabtu waa maya soonka niyada inaad berri soonto ah maadan taradud iyo shaki gelinin inaad soonto waad ku tala gashan tahay laakiin haddana dhanka kale waxaad ku tala gashan tahay haddaad duruufi kugu timaado ood soonka wadi weydo inaad iska afurto mushkilo ma leh waxay la mid tahay oo kale nabigeena sal lla lay waslam waa kii ruuxii xajka ka baqaya inuu dhammaystiran waayo gabadhii xanuunka muxuu ahaayey rasuulka sal lla lay wasalam ku tidhi xajkaan aadi rabaa xanuunna waa ka baqayaa maxaan sameeyaa ishtaritii buu nabigu ku yuri sal shardi dhigo oo shardigu muxuu yahay waxaad leedahay ilaahayow meeshaan ku xalaaloobayo waa meesha aada igu xabisto meeshaad yani wax weye xanuunku igu dhaco ama xajkii laygaga hor istaago ama duruuftaasi igu timaado halkaasaan ku xalaaloobayaa xajka camaashiisii kaga baxaya marka shardigaa dhiga buu nabig sal lay wasalam markaasi ruuxuu hadduu niyoodiy hadduusan niyooninba waa isku mid kolley hadday maalintii duruuftii aad ku caafima aad ku afuri lahayd hadday kugu timaado inaad horey u niyeysatay laazimeh waad iska afuri haddaad soonkii wadi kari weydo
oo dadka sokorta qabo kale haday sokorti ka dhacdo ama kugu kacdo kale oo halis dareento waad iska afuri kartaa niyadaas hore habeenkii aad soo niyoonayso laakiin waa inay tahay niyad go'ano bari waa soomaya ama tan haduu xanuunkii ugu kaco waa afuraya mushkilo ma leh xadhiba ma leh waa niyad muxuu ahaay hadii aad la timaadana waa okay hadaad iska daysana dhimale naam جزاك الله خيرا سائل كان كل حولي هي شيخنا بشهر رمضان وبشهر قرآن كإن بدل الأخريو دت كان أي ختمان مركمية سواء أرورتي مر والبقى قرآن كلا ختمه إن لدعيسته حديث مرفوع متشره حديث نبي كسر صلى الله عليه وسلم أردها يا قرآن كمركز ضميستان دعيسته متشره لكن آثار بسلف كسران أذفر بدن أو تلماميسا قرآن كمركز ضميان إني دعيسن شرين مركوي في عنتهاي أعماش خير كمركا أتصمي سنة قداش هذا دعاء ومشروع مركا واحدة وملة إن لدعايسته ولو إن لازمه أو سيدي شيء لازم أو شريعة أمرتي أو كلا إن لو لازمين بافي عن إن مرنا دعايسته مرنا تسكديش نعم جزاك الله خيرا سائل كان كالوحولي يا شيخ إلهي هاكو بركايو waxaan ku weydiinayaa anoo sooman ayaan gabar codkeeda dhageystay kadib dareenkaygii ayaa kacay oo biyihii sidii bay iiga yimaadeen marka soonkayga sidaa ma ku jabaya fiirada iyo dhageysiga iyo xeelaha noocaas oo kala hadii ruuxa ku talagal la'aan shahwadu uga timaado soonku ma jabayo laakiin hadduu ruuxu ku talagalo asbaabtii shahwada soo saaraysay isaga ficil ahaan uu sameeyo sidaana shahwadu kaga timaado culimada jamaahiirtoodu waxay qabaan soonku waa jabaya laakiin ishaadoo ku dhacday ama dhegtaadoo maqashay isla markaana talagal uusan jirin markaana sida shahwa kaaga timaado soonku jabi maayo wallahu a'lam jazaaka allah khayran sheekh waxaan rabaa inaan ku weydiiyo salliga nabiga sallallahu alayhi wasallam hadii aan ku soo koobo allahumma salli ala muhammad miye iga gudaysa inta oo kaliya oo salliga caadiga miye noqonaya culimada qaar baa ku sheega in uu salliga siiqada ugu yari ay tahay nabiga loogu salin karo allahumma salli ala muhammad laakiin markasta oo siiqooyinkii soo arooray aad isticmaasho way ka sii fiican tahay hadaad kordhiso oo nabiga aalkiisa iyo saxaabada aad ku tatana way ka sii fiican tahay ama allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad aalka marka waxa isla soo galaya saxaabadiisa iyo qaraabadiisa wallahu a'lam جزاك الله خيرا سائل كان كل حولي هي وحن العقد زكاة سيي روح ومن الشيء إن الزكاة هاي وحن كويري العقد عن كل قيسو سند كدبنا سعلي وحن سيدا ويالي إن نروح كلا سيو سيدا وإرادة سيدا كلا horta ruux aad zaka siinayso uma baahna inaad tiraahdo shaygani waa zako zakadu waa niyo inaad niyeysato xoolahana inay yihiin zakadii waajibkeeda xoolahaaga ka go'aysay kadibna masaakiinta iyo dadka mudan markaad siinayso inaad u sheegto tiraa waa zako uma baahna waa qodobka labaad sakada miskiinka hadaad siiso isaga iskale ma wax intaad deymiso aad leedahay soo celi ma waa sidii deyn oo kale intaad ugu muujiso ku shaqayso oo soo celi haddana isagii ka qaado mid kale sii haddana soo celi adiga inaad maamusho ma bahaba adiga mar alla marka zakada bixiso masaakiinta iska lahayd bay ku wareegtay inaad ku maamushana xaq uma leeyahay inaad soo celiyo haddana mid kale siiyo xaq uma leeyahay miskiinka ayaa zakada iska leh inama sadaqatu lil fuqaraa wal masaakiin wa masaakiin wal aamilin ali iyaga iska leh haday gacantooda gasho tasarruf mutlaq ay ku tasarrufi karaan adiguna kuma daba gali kartid kuma control kamana soo celin kareys wallahu a'lam jazaaka allah khayran saailadan waxay leedahay waxaa la igu sheegay inay ugxaantayda daciif yihiin oo aan uur qaadi karin marka sheekhu gabar kale ugxaantayda ma ka iibsan karaa oo ma liigu beeri karaa jawaabtu waa maya marba haddaan ukuntaadu aysan qaadi karaynin ilmo inaad sabirto waaye ilaahay baa kuu qoray walacalla inay khayr kuu tahay alkhayr fima ikhtaarahu allah wixii ilaahay kuu dooray baa khayr ku jiraa madhaleysnimada rasmiga ah oo aan xalka lahayn haddii ilaahay uu kaa dhigo tabaaraka watacaala waa qayb addoommadiisa ka mida ayuu sidaa ka dhigaa wayajcalu man yashaau caqiiman
ciduu doonuu ilaahay ma dhalays ka dhigaa addoonkaasoo kale marka waxaa la rabaa inuu imtixaanka ilmo la'aanta ku sabro oo inaad ilmo hesho waxba laazim ah yani wax ilaahay ibni aadamka jeclaysiiyey wey laakiin laazim ma aha aakhiradaada iyo ilaahay la kulankiisii inaad janno gashana ilmo inaad yeelato kuma xidhna marka iska sabir yani daacaadkaaga iyo khayraadkaaga samayso wixii ilaahay ku siiyana iska hormarso ama inaad dariiqan marto oo ukun kalaan iibsanayaa ama gabadh kale ukunteeda ama minkeedan kiraysanayaa minka waa la kiraystaa oo waliba waa la kala gataaba ama ukuntii baan iibsanayaa ama kiraysanayaa saasan ilmo ku helaya culimadu kulligood waxay isku waafaqsan yihiin inay xaaraan tahay ilmaha saa ku dhashana adigu ma balhidba ilmaha waxaa iskale islaantii ukunta iska lahayd haddii islaantaasi ukunta iskale iyo nin aan qabin biyihiisa laysu geeyo ninku ma qabo biyaha iska leh ukuntiina ayadaa leh laba ruuxoon isqabin baa ukuntoodii iyo biyahoodii laysku tallaalay ilmaha ka dhalanayaay waaba ilmo aan sharci ahayn waaba ilmo aan sharci ahayn sida waladu zinahoo kaloo la mid yahay caruurta yani zinada ku dhalato oo kaloo la mid yahay aabba ma leh saasoo ilaan xadhig ma jiro sidaas daraaddeed gabadhaa waxaan leeyahay iyo inta la midka aba haddii ilaahay saa idinku qadaray ku sabra wixii ilaahay idin qadaray tabaaraka wa tacaala wallahu aclam jazaaka allahu khayran su-aasha ugu dambeysa barnaamijkeenan maanta waxay leedahay sheekh waxaan daahir noqday habeenkii laakiin maanan qubaysanin sala subaxna maanan tukanin duhur ka hore ayaan qubaystay laakiin ramadaankii iyo soonkii waxaan soo niyeysay xali aanan daahir ahayn marka niyadeyda sidaa soonka may ku ansaxaysaa soonku waa sax maadaama habeenkii aad soo niyeeto caadaduna ay kaa go'day waabirka ka hor intaan waagu baryin ayay caadadu dhammaatay waadna soo niyootay markii caadadu go'day kadib soonkii niyadii habeennimada waa la helay waagii baa kuu baryay adigoo soonkii niyeysan caadadiina ayna maalinkaasi ku haynin oo habeennimadii go'day soonkaasi waa sax laakiin khaladkay gashay gabadha waxa weeye waxay ahayd salaada subax inay u qabaysato salaad subax tukato laana salaada subax waxay martay iyadoo caadadiina ka go'day waqtigii salaaduna soo galay salaad dhanbay marka dayacday oo meesha ka saartay salaadaa aad dayacday oo meesha ka baxday oo adoo caadadii kaa go'day ku martay eedan qabaysanin salaadaa waa lagugu leeyahay soo qalee amaa soonkaagu waa jiraa waana sax wallahu aclam maxaa yeele nabigeena sal lla lay wasalam sida xadiidka umu salama iyo caaisha ay ka warinayaan nebigu sal lla lay wasalam janaabo habeenkii ku dhacdo xaasaskiisa uu la kulmay ayuu waagu u bari jiray isagoon ka qabaysanin markaasuu soomi jiro soonkiisa wadan jiray nebigu sal lla lay wasalam saas macnaha janaabadu habeennimadii bay dhacday laakiin qabayskii baa soo dib dhacay muusan qabaysanin waagaa u baryay isagoon qabaysanin soonkiisuu wadan jiray nebigu sal lla lay wasalam marka caadaduna waa la mid haddii habeenkii go'do la soo niyoodo qabaysku uun dib dhaco mushkilo male waa la soomaya soonku waa asaxaya nacam jazaaka allahu khayran daawadayaal su-aalihii iyo tafsiirkii ka horreeyeyba maanta halka ayay nooga egyihiin ciddii ay dhaaftay barnaamijka isaga oo fuul ah oo dhammaystiran waxay dib ugu daalacan kartaa bejka ama youtube-ka uu masjidka sigiska uu ku leeyahay baraha bulshada youtube-ka ama facebooka ciwaankiisana uu yahay masjidka sigiska islii nairobi intaa iyo wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu